dadka Canadian-ka ah ayaa subaxnimadii Talaadada la soo toosay ama kaag kadib markii habeennimadii Isniinta ay seexdeen iyadoo aanan lagu dhawaaqin natiijooyinka qaar balse la hubo in xisbiga Liberaalka ah uu ku guuleystay dowlad aan aqlabiyad ahayn. Hogaamiyaha xisbiga Conservative-ka Pierre Poilievre oo in ka badan 20 sano soo ahaa xildhibaan ayaa doorashadii Isniintii ku waayay kursigiisii xaafadda Carleton ee magaalada caasimadda ah ee Ottawa. tan ayaa ka dhigan in Poilievre aanan aqalka baarlamaanka lagu arki doonin 4 sano ee soo socota haddaysan dhicin doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay. Bruce Fanjoy oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa ku guuleystay kursigaasi isagoo helay 42,374 cod oo u dhiganta 50.6% halka Poilievre uu helay 38,581 cod. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in kursiga Carleton ee uu Poilievre u tartamayay isla markaana uu muddo ahaa xildhibaanka ku fadhiya ay u tartameen 91 murashax taasoo dadka qaar ay sheegeen inay ahayd mid culays lagu saarayay Poilievre maadaama murashax walba uu helayo codad haba kala yaraadaan. Pierre Poilievre hogaamiyaha waayay kursigiisa xildhibaannimo ayaa khudbad u jeediyay guul darradiisa ka hor wuxuu sheegay in xisbigiisa midigta ah ee Conservative-ka uu guul weyn gaaray tan iyo 1988 inkastoo isaga kaliya uu noqday xildhibaanka kursiga ku fadhiya ee guul dareystay marka loo eego xildhibaanada kale ee dhammaan xaafadaha magaalada Ottawa. Bruce Fanjoy ayaa guushiisa taariikhiga ah kadib sheegay inuu isku keenayo dadka Canadian-ka ah ee uu xildhibaanka u yahay isla markaana uu ka shaqeynayo wadajirkooda. ma cadda in Poilievre uu weli sii ahaan doono hogaamiyaha xisbiga Conservative-ka isagoo aanan haysan kursi xildhibaannimo balse hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh oo isaga iyo xisbigiisuba ay la kulmeen guul darro ayaa tilmaamay inuu iska casilayo hogaanka xisbiga oo uu hayay tan iyo 2017 kadib markii uu xajisan waayay kursiga muddada uu ku fadhiyay ee baarlamaanka. Ra'iisul Wasaare Mark Carney hogaamiyaha xisbiga Liberaalka ayaa lagu wadaa inuu soo dhiso dowlad wax ka qabata dhibaatooyinka taagan walow ay u baahnaan doonaan 4 cod oo dheeri ah oo ka yimaada xisbiyada kale si ay u noqdaan aqlabiyad meel mariya ajandayaashooda. nagu xirno fadlan halkan ayaana idinkugu soo gudbin doonaa magacaabista golaha cusub ee wasiirada iyo tallaabooyinka dowladdan cusub ee ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka taagan. intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.